kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin dalka Ciraaq xadgudubyo galmo oo ay fududeeyaan wadaadda Shiica ayaa lagula kacaa gabdho yaryar iyo caruur warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah madaxweyne Donald Trump ayaa si cad ugu baaqay Shiinaha inay Baaris ku sameeyaan ninka siyaasadda kula herdamaya Joe Biden Kenya ayaa rajaynaysa inay hogaamiso tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee adduunka waa roobad ciyaaraha u ciyaaraha qalamad rogodka weeyaan u ciyaaraya sida dadkii qodobka iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka tiknoolajiyadda ee kale kala soco BBC News Somali Television raadiyaha online iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka baaritaan qarsoodi ah oo ay BBC-du ka samaysay Ciraaq ayaa lagu helay cadeymo muujinaya xadgudubyo galmo oo loo geystay caruur iyo gabdho da'yar oo ay geysteen wadaaddo Shiicada Muslimka ah BBC-da afka Carabiga ayaa daboolka ka qaatay xodxodasho iyo xadgudubyo lagula kacay gabdho nugul oo ku nool Karbala iyo Baghdad iyadoo la isticmaalayo waxa loogu yeeray guurka kumeel gaarka dhaqankan ayaa sharci darro ka ah Ciraaq laakiin qaar ayaa aaminsan in la ogolaado iyada oo la cuskanayo fasiraadda shareecada oo ogolaanaysa in guurkan kumeel gaarka uu jiri karo oo mararka qaarna hal saac ay noqon karto wadaadada kaamirada lagu qabtay ayaa iibinaya gabdhaha waxayna talo ka bixinayaan sida loola galmoonayo caruurta iyaga oo sheeganaya in la ogol yahay guurka kumeel gaarka digniin warbixintan waxaa ku jira xadgudubyo caruur lagula kacayo oo aad dhibsan karto Karbala waxa ku yaala macbadka ugu barakaysan Shiicada malaayiin qof ayaana u xajiya sanad kasta wadooyinka ku hareeraysan macbadka waxa ku yaala xafiisyo la isku guursado balse waxa gudahooda ku qarsoon dhagar iyo sir guracan waxaan maqalnay in qaar ka mid ah wadaadada ay ku takrifalayaan awoodooda sidii fududeynta guurka kumeel gaarka ah ama mutcada loo yaqaano si loogu galmoodo gabdhaha yaryar guurka mutcada waa heshiis guur oo leh xilli uu dhacayo oo noqon karta hal saac iyo wixii ka badan dadka qaar ayaa u arka tallaabo u wanaagsan dadka isguursanaya maadaama ay og yihiin waxa ay samaynayaan laakiin waxay sidoo kale qeexeen inuu xadgudub jiro baaritaan qarsoodi ah oo socday sanad ayaan ku daafurnay qaar ka mid ah macbadyada Shiicada ee Ciraaq waxaa wanaagsan in hal maalin la sameeyo haddii aad isilowdid ka taxadar inaadan bikra jabin la jiifso jirkeeda iyo laabteedana salaax guurkan kumeel gaarka ah waa dembi dalka Ciraaq laakiin waxaan helnay wadaaddo sameeya mehersiga gabdhaha yaryar oo kaliya ma sahlaan laakiin waxay sidoo kale qiil u bixiyaan in diinta islaamku ay sharciyeysay in gabdhaha loo galmoodo sida ay shareecadu qabto dhibaato ma laha waa lagu fasaxay waa lagu ogol yahay inaad dhanka dambe uga tagto ku samee waxaad doonto ma hubtaa in la ogol yahay haddii ay yar tahay haa 9 jir wixii ka weyn dhibaato ma laha haba yaraatee haddii ay dhibaato gaartana adiga iyo iyada ayaa go'aansanaya inay xanuunka xamili karto waxaan muuqaaladan tusinay khabiir ku takhasusay shareecada islaamka Ghaith Tamimi ayaa ka mid ahaa wadaadada sarsare waxa uu ninkan leeyahay waa dambi ay tahay in sharciga uu ciqaabo wuxuu sheegay inay tahay sababta uu u go'aansaday inuu arrinkan ka hadlo waxaan ku sheegayaa in sharciyada foosha xun ee naxariista daran aysan alla ka iman ama xataa qof bini'aadana baaritaanada inta aan wadnay waxaan ururinay cadaymo qeexaya in wadaadda ay fududaynayaan in loo galmoodo gabdhaha yaryar iyagoo lacag ku qaata mar waxaana loo sheegay in gabdhaha yaryar qiimahoodu yahay ilaa iyo $800 rusul waa 16 jir ilaa iyo hadda waxaa laga iibiyey niman aysan tiradoodu xasuusan karin
waalid ma laha waxa ay daryeeshaa walaasheed ka yar 13 jir iyadoo ah ayuuna wadaad mehriyey. gabdho badan oo anigoo kale ah ayaa jira waa wax aad u baahsan. marka ay gabar bilowday inay arrintani samayso way u dhammaatay. nolosheeda maalinkaas ayay burburtay, mustaqbal ma haysato, way u dhammaatay. wadaadkan ayaa dafiray inuu sameeyo guurka kumeelgaarka ah, mid kalena wax jawaab ah kamaynan helin, balse labaduba waxay sheegayaan inay taabacsan yihiin wadaadka weyn ee Ayatollah Sistani, mid ka mid ah wadaadada ugu waaweyn muslimiinta Shiicada. baaritaankeenna ayaanu xafiiskooda hor dhignay, bayaan ayayna soo saareen. wuxuu leeyahay haddii ay arrimahani u dhacaan sida aad sheegaysaan, si weyn ayaanu u dhaleecaynaynaa. guurka kumeel gaarka ah looma isticmaali karo in lagu iibiyo galmo, taasoo meel uga dhacaysa sharafta iyo bani'aadamnimada haweenka. dagaalka wakhtiga dheer ka socday dalkan ayaa ka dhigay malaayiin dumar ah kuwa nugul oo aan hooy haysan. inta ay wadaadada qaarna u dhaqmayaan inay sharciga ka sarreeyaan, dumarkani waxay sii ahaan doonaan dhibanayaasha ganacsiga qarsoon ee galmada Ciraaq. وهجاج بالمركن هدي أنو يجنو قضبة كلا يكجرا ورار كعوة. دولة الصومالية أيها شكتين أني أقلين أو أيسن أقبلين إن دبلو دقيسيجا دعوة تنك حدود بدأ كوساليسن كينيا كلا دحيسو. رئيس الوزراء كحجان كصوماليا أيها حرونتا محكمة ICJ كهر شيء إن كينيا عدتي إن مرلبا دبلو دقيسيجا بلس صوماليا أني أقلين دبو دقاسي أين كدل بدن محكمة إن سيدي لقو بلامي 4 نوفمبر لقبته. kumanyaal qof ayaa wadooyinka Hong Kong isugu soo baxay si ay uga mudaharaadaan mamnuucista lagu soo rogay maaskaraadada ama qalabka wajiga lagu qarsado. waxa ay xireen wadooyinka waxayna ku soo urureen suuqyada waaweyn qaar badan oo kamid ahna maaskara ayay xirnaayeen si ay u jabiyaan amarkan. mas'uuliyiinta ayaa soo rogay sharci degdeg ah si ay u fuliyaan amarkan oo lagu wado inuu berri dhaqan galo. dad badan oo u dhaqdhaqaaqa dadweynaha ayaa xirta maaskarada si ay u qariyaan wajigooda isla markaana ay uga gaashantaan sunta indhaha ka ilmaysiisa. xaaskan in boolis ahaa oo safar oo 4 sarkaal oo la shaqayn jirtay ku dilay magaalada Paris ayaa sheegtay inuu qabay xaalad dhimirka ah oo qarsoon. waxay sheegtay inuu Michael Harpon isla hadlayay habeenkii ka horeysay maalintii la dilay. xaaskiisa ayaa iminka ku jirta gacanta booliska walow aanan waxba lagu eedeyn. waxa ay sheegtay booliska in uu khilaaf kala dhaxeeyay isaga iyo madaxdiisa. saraakiisha midowga booliska ayaa sidoo kale sheegay in laga yaabay in Harpon uu shaqada muran kala kulmay. وقول وين ودنك الساينس كأهل عريان هيا ودو يشينو أفرتيسا الدين دقدقاجي إسقو استعمالي لفا أنو لهين أو أنو مسكحديسا أو سو مسكحديسا وماملو تلبود أو صدن جرأة أيا أذيك سدي وحو أذيك سدي دريس روبوت أو شن يلحذن كيلوغرام أو لقى سولو لي سقف كشيبار كيا لدلك فرنسا قلنا جارها أو مسكحدها هيا لقو سمي سو فكر كيسا وقو ترجمي كرو فعل كيسا إسقو كمبيوتر استعماليا. وهجاج مدحوينه دونالد ترامب ayaa si cad ugu baaqay Shiinaha in ay baaritaan ku sameeyaan ninka siyaasadda ay isaga soo horjeedaan Joe Biden. dimuqraadiyiinta ayaa bilaabay dhageysiga xilka qaadista madaxweynaha kadib markii uu madaxweynaha Ukraine ka dalbaday in uu fadeexeeyo Mr Biden iyo wiilkiisa. Mr Trump ayaa ku eedeeyay Biden iyo Hunter musuqmaasuq ku salaysan ganacsi iyo siyaasad oo ay la galeen Shiinaha iyo Ukraine, laakiin ma aanu bixin wax cadayna. Shiinuhu hadda waxa uu bilaabay baaritaanka reer Biden sababtoo ah wixii ka dhacay Shiinaha waa wax aad u xun oo aad u xun sida wixii ka dhacay Ukraine. marka waxaan oran lahaa madaxweyne Zelensky haddii aan aniga ahaan lahaa waxaan soo jeedin lahaa inay bilaabaan baaritaanka reer Biden sababtoo ah cidna dah kama saarna inaan la aamini karin. kaasi wuxuu ahaa heshiis musuqmaasuq ah 100%. John Biden oo ka jawaabay taas ayaa sheegay in fikradda Donald Trump ee lagu weerarayo sharafta cid kasta ay tahay wax lagu qoslo. fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay sida uu yiri mudane madaxweyne kuma cadaadin kartid dawladda shisheeye in ay ka caawiyaan inaad ku guuleysato oo aad dib lagu doorto. waa ku takrifal awoodeed waxayna xadgudub ku tahay buu yiri dhaartii xafiiska. dimuqraadiyiinta oo ku baaqay dacwad xilka xayoobina kadib eedeymaha wada sheekaysigii telefoon
oo dhacay 25 July oo u dhaxeeyay madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay sida uu sheegay waxa uu yiri in ay habdhaqankaasi mid aanan asluubaysnayn daacad ahayn isla markaana khaldan waxa ay faafiyeen fariimo qoraaleed muujinaysa in diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan ay ka wada hadleen in la xanibo taageerada amniga ee Ukraine laguna cadaadiyo Kiev in ay baaritaan ku sameeyaan Mr Biden hadda xeer ilaaliyaha guud ee Ukraine ayaa sheegay in xafiiskiisu uu dib u eegayo dhowr kiis oo la xiriira shirkad tamar oo lala xiriirinayo wiilka Biden laakiin eedeymahan ka dhanka ah Mr Trump ma yeelan doonaan wax saameyn ama ku yeelan doonaan doorashada soo socota waa kan wariyaha BBC-da ee Washington Chris Buckler The 2020 presidential election is coming up. doorashada madaxweyne ee 2020 way imaanaysa sababtoo ah madaxweyne Trump wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo oo iska dhigo dhibane dimuqraadiyiintu way og yihiin inay qatartaasi oo dhan ay jirto wayna xaqiiqsan yihiin waxa dhabtase waxa weeye inay tahay codadka kuwa aan weli wax go'aansan dadkaasi oo ku sugan galbeedka dhexe ee Mareykanka iyo kuwa Rust Belt halkaasi oo dadka degan laga dhaadhiciyay 2016 inay u codeeyaan Donald Trump miyay aqbali doonaan sheegashooyinkiisa ah in aanu samayn wax qalad ah marka ay timaado 2020 mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doontaan muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram wali waxaa inoo soo socda aad qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan roobad ciyaaraha qalama rogadka sida dadka u ciyaaraya qodobka iyo qodobo kale ayaanu idinkugu haynaa qaybta dambe ee barnaamijka qadar yar oo nasasho ah dabad wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waniga maxamed cabdi xaraare balaadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn xadgudubyo galmo oo ay fududeeyaan wadaadda shiica ah ayaa lagula kacaa caruur iyo gabdho yaryar dalka Ciraaq madaxweyne Donald Trump ayaa si cad ugu baaqay Shiinaha in ay baaris ku sameeyaan ninka siyaasadda kula herdamaya Joe Biden Kenya ayaa dhawaan bilowday mashruucii korontada dabaysha laga dhaliyo ee ugu weyna Afrika hadda 7% awoodda tamarta ee dalkaasi waxa ay ka timaadaa ilaha korontada ee dib loo cusboonaysiin karo iyadoo Kenya ay doonayso inay guud ahaan dalka oo dhan ka hirgeliso tamar dabiici ah sanadka 2020 laakiin caqabadaha ugu waaweyn ayaa ah in la xaqiijiyo in dadka Kenya ay helaan koronto Mawlid Xaaji ayaa inoo haya warbixintan ku soo dhawow beerta koronto dhalinta dabaysha loo adeegsado ee Afrika ugu weyn waxay si tartiib ah Kenya uga dhigayaan awood koronto heer qaarad iyo heer caalami ah beertan oo ku kacday in ka badan 690 milyan oo dollar waxay shaqo bilowday dhamaadkii July waxa gacan ka geysta wakiilo ka socda shirkado Yurub iyo Afrikaan ah waxay ku taal gobolka Turkana ee waqooyiga bari ee Kenya beertan waxaa ku yaal 365 matoorada marwaxadaha dabaysha oo awood u leh inay dhaliyaan 310 megawatt oo koronto la isku halayn karo
marka laga tago inay tahay tamarta dabiiciga ah waxay soo saartaa marxawadda laga dhaliyo waxayna dabooshaa ku dhowaad 17% baahida koronto ee Kenya maalintii inta lagu jiro xilliyada korontada aan aadka loo isticmaalna sidoo kale ilaa 30% oo baahida korontada Kenya ee habeenkii ama xilliyada kale ee aan loo baahnayn korontada tani waxay ka dhigan tahay in waddanku joojinayo ku tiirsanaanshaha shidaalka korontada halkan laga dhaliyo goor horeba waxay qayb ka noqotay korontada dalka laga isticmaalo waxayna dhintay ku dhowaad 12% korontadii tagaysay dadka Kenya iyo ganacsiguba waxay rajaynayaan in ilaa iyo 110 ay isdhinto qiimaha korontada sida ay sheegtay dawladda Kenya qorshaha sanadka dambe waa in la soo saaraa 100% koronto dabiici ah iyadoo la adeegsanayo biyo xireenno heerkulka dhulka iyo tamarta cadceedda goor horeba waxay hogaamisaa Afrika dhanka tamarta diirimaadka laga dhaliyo Kenya waxay leedahay warshada koronto ee laga dhaliyo kulka dhulka oo ku taal halkan galbeedka caasimadda waxay awood u leedahay kaydinta 600 oo megawatt Kenya waxay si quman ugu socotaa hanashada hamigeeda tamarta dabiiciga ah sanadka 2020 hadafkeennu waa inaan helnaa tamar nadiif ah oo gacan ka geysata kor u qaadidda quwadda koronto ee dalka 2 ama 3 sano ee soo socota inkastoo ay jirto awood weyn malaayiin Kenyan sida dadka halkan ku sugan ayaan weli helin adeeg koronto dawladdu waxay quudaraynaysaa inay maalgashi ballaaran ku samayso mashaariicda tamarta dib loo cusboonaysiiyo ayna isku xirto awoodna ay u hesho dalka oo dhan in koronto la gaarsiiyo وهاجاج بالمركنا وركي وجودن بترتن كعيارها فضد عالم كسعودة مجالات الدوحة الدلك خضر عياراسي وحا إجلان مالنتي سدادات وحنا حالة عيارها ندى ترتمي كمدها كوك السعودة الصومالي جيبوتي وريها BBC عبد الرحمن بدان حاج داير وبريها بكوسجنا الدوحة أي خد كتوس وجرا عبد الرحمن سودو عيارها حيسها كل الدوحة أنت بنجارسي ما تسند حرارة تبعون أكسن أديك يدا وضياء شباب سيد الله صعوته waxa qadar aad looga hadlayay hawada hawadu way fiicantahay bal leeyahay hadana walideed dadka alla qabsan waa kuleyl hadii aynu taa ka gudubno garoonka caawa buuxa taa lafteeda waa laga cabanay garoonka caawad waa jimce dad badan oo caayilaadkii ciyaal badan iyo caruur iyo reeriyo galayna maanu arkaynay dhanka kale xalay toole waxa la tartamay 1500 mitir oo waxa ka qayb galay dhalinyaro Soomaaliya oo uu kamid yahay ciyaartooy ordayay Soomaaliya ciyaartooygaasi oo runtii Cabdullaahi Jaamacaan uu soo bixin isagu wareegadii dambe markii uu dhameystay orodka ayaan kula kulmay xarunta Stadium Khalifa alxamdulillah si fiican bay igu dhacaan ciyaaru inkastoo aanan wareegga xiga u gudbin aan semi-final tagin haddana si fiican baan u orodnay insha Allah personal saacadda ugu fiican saacad ku dhaw ku orday inkastoo aan rajaynayna meeshaas meel fiican ka gaadho laakiin waa mar walba waa qoraalkan uu meesha ku jira Cabdullaahi ka waran tartankan iyo tartamadii hore ka qayb gashay maxay ku kala duwan yihiin walaal wax badan bay ku kala duwan yihiin tartankan waa tartan the Serie A waa World Championship saad ogtahay laakiin tartamadii hore aan ka soo qayb galay waxaan qaar youth iyo kuwa heer Afrika laakiin kan waa mid heer caalami ah marka aad bay kala duwan yihiin waa gartay waxa jirta dabeeto iyada in dhanka kale jamhuuriyadda Djibouti ciyaartooy ka socday ayaan la Sulaymaan la yiraahdo oo isagu carabahana guulo hore ka keenay inuu ay u suurta gashay inuu isagu soo gudbo wareegga labaad ee 1500 mitir ayaan la laftigiisana xarunta stadiumka ayaan kula kulmay markii uu ciyaarta uu sida u dhameeyay caawa hiidkaygii groupkii horeysay waan badiyay habeen dambana wali sirraabkii ay si soconaya insha Allah habeen dambana waxaan rajaynayaa inaan sirraabka si fudud uga soo baxo si aan finalka awoodda u saaro waayo sirraabku riski badan buu leeyahay oo jiir badan buu leeyahay qaar badan way kufayeen aad baan uga taxadiray xagga dambe iska joogay intii u dambeysay mooyaane marka waxaan leeyahay in la sugayo maxaad sugi waan aragnaa ayaalana wuxuu soo baxay wareegyada dambe laakiinse ciyaarta finalka habeenka ciyaarta la soo xiri doono hadda ayaynu ogaan doonaa ayaala halku ka gaadho ciyaaruhu si habsami leh u socdaan habeenkiiba aad loo ordaya xaraarow habeen dambe oo sabtida ama axadba la galay 12 barka ayaa ragga maaradoonkiisii qadar cornish la ordi doona ama dooxa cornish marka waxaad moodaa xaraarow in xaraaradii iyo cimiladii iyo ciyaarihiiba ay gacmaha isqabsadeen waa mahadsantiin بدان حاج داهر آدي آديات وما سنتهاي عيارها الدنبنا ونكاور يسندونا مهتسنيد بالمركنا هدي أنو يجنو ورك عيارها عاوة
waxa ay u ahayd habeen kale oo aad u adag. Manchester United tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa rumaysan in kooxdiisa ay ahayd in loo dhigo gool kulaad ciyaartii barbardhaca ay la galeen AZ Alkmaar ciyaar ka tirsanayd koobka Europa League. Dhanka kalena inanka da'da yar ee Arsenal Gabriel Martinelli ayaa 2 gool dhaliyay mid kalena gacan ka geystay dhalintiisa gool ay kooxda Arsenal ka gaartay naadiga reer Belgium Standard League oo 4-0 ay ku sagootiyeen. toddobaadkan horyaalka Ingiriiska waxaa la ciyaaraya kooxda hoggaanka u haysa ciyaaraha Ingiriiska ee horyaalkan dalkan Ingiriiska Liverpool ayaa rajaynaysa inay sii wadato guulaheeda oo aan laga badin. Waxa ay la ciyaari doontaa Leicester. Kooxda koobka difaacanaysa ee Man City ayaa ka hortagaysa Wolves iyadoo Arsenal ay qaabilaysa Bournemouth. Chelsea ayaa marti u ah Southampton halka Watford ay rajaynaysa inay dhibcihii ugu horeeyay ee guusha ka qaadato kulanka ay fooda isku darayaan Sheffield United. madaxa guddiga Olombikada caalamiga ah ayaa sheegay in hay'adda la dagaalanka dawada awoodda siisay ciyaartoyda adduunka ay baaritaan ku samayso dhammaan ciyaartoyda uu tababaray tababaraha ciyaaraha fudud Alberto Salazar. Waxaa laga mamnuucay Alberto Salazar garoomada ciyaaraha 4 sano kadib markii lagu helay dambi ah inuu galay xadgudub. Iminka ayuu racfaan ka qaadanaya. Fadeexadan ayaa soo haraysay tartanka ciyaaraha fudud ee adduunka ee ka socda Doha. وهاجاك برنامجك تكنولوجيا دا إعاونة وحنا يدينكوا هينا روبوت وحسك علينا قعم قشي عاقلة أو لجو سمايو جميع سيجا جركة يقف معملة والشقة سي إزدبجوجا لوجا إريو قالب بارود أيا إنه هيا هداد مودي سين مالنتو كاتشا شبانتهاي بالقياس حالة باري وقف بنا آذنا oo danta laga leeyahay oo kaliya ay tahay in si joogta ah shaqada looga eriyo. 57 jirkan waxaa farsameeyay shirkadda Talispin. Ujeedku waa sidii maamulayaasha loo siin lahaa tababar quseeya xaaladaha adag iyo caydhinta shaqaalaha xun. Magaalada Madrid waxaa markii ugu horeysay gacmagashi macmal ah lagu tijaabinayaa dadka bukaanka ah ee qaba lafa xanuunka. qalabkan waxaa sameeyay Quantic Nanotech. waxa uu dhakhaatiirta siinayaa awood lagu maamulo gacmagashiga si uu iskiisu kululeeyo, u gariiro, una duuga bukaanka iyagoo gurigooda ku nasanaya. haddana waa robot indhasiraadan oo caawinaya kalkaaliyaasha caafimaadka ee cisbitaalkan oo ku yaala Texas. waxaa bil lagu tijaabinayaa 4 xarumood oo Mareykanka ku yaala. waxaa sameeyay Diligent Robotics. waxa uu adeegsadaa al si uu aqoonsado halka uu ku sugan yahay. waxaa ku yaala kamarad. waxa uu dareemaa iftiinka wuuna xamaalaa haddii loo baahdo. ugu dambayntii waa robot qalma rogodka u samayn kara sida xirfadlayaasha. Atlas waxa uu si laba rogi karaa si cajiib ah. waxaana islaba rogan iyo xirfadahanba u sahlaya fudaydkiisa iyo jiljilicanaantiisa. وهاجاك ugu dambeyntiina sawir gacmeed uu sameeyay Banksy oo muujinaya in baarlamaanka Britain ay daanyaro qabsadeen ayaa lagu xarashay lacag gaaraysa 12 milyan oo dollar. muuqaalkan ayaa laga helay in ku dhow 5 ujibaar qiimihii hore loo saadalinayay kadib 13 daqiiqo oo ay naade iyo gorgortan socdeen. dadka qabanqaabiyay ayaa sheegay in uu ahaa qiimihii ugu badnaa ee abid la kala siisto muuqaalada uu farshaxamiistahan sameeyo. bal markana haddii aan idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweynaa xadgudubyo iyo galmo ay fududeeyaan wadaado shiica ah ayaa lagula kacaa caruur iyo gabdho yaryar dalka Ciraaq. madaxweyne Donald Trumpna si cad ayuu ugu baaqay Shiinaha in ay Paris ku sameeyaan ninka siyaasadda kala herdamaya Joe Biden. xusno wararka ugu dambeeyay BBC Somali waxa aad ka heli kartaan bbc.com/somali.
inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo jimco wanaagsan